Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan dhammaan inta ku xiran channelkan oo aad uga barateen qisooyin jacayl oo taxane ah oo aad iyo aad u xiiso badan iyo mawduucyo kale oo ku saabsan amaba saameyn ku yeelan kara noloshaada gaarka ah. waa channel aad ka kororsan doontaan khibrado iyo waayo-aragnimo ku aadan dhanka nolosha iyo isbedelada ku xeeran noloshaada. sida intiinii ku xiran channelkan ay la wada socdeen, waxaa inoo socday qiso jacayl oo aad iyo aad u xiiso badan, taasoo la magac baxday jacaylkii Fuurida, oo aad horay u soo dhagaysateen 7 qaybood oo aan maantana idiin soo gudbin doona hadduu alle raalli ka noqdo qaybtii 8aad ee qisadii la magac baxday jacaylkii Fuurida. qisadan oo ah qiso jacayl oo dhab ah oo aad ka kororsan doonto waayo-aragnimo baaxad weyn ayaa waxay inta badan soo koobaysaa qaybaha kala duwan ee nolosha. runtiina waa qiso aad wax badan ka kororsan doonto. inta aanan u gudagelin qaybta 8aad ee sheekada, bal aan idiin yara xasuusiyo halkii ay inoo maraysay qaybtii 7aad ee sheekada. qaybta 7aad ayaa waxay inoo maraysay Saadaq oo inta soo qaatay warqaddii ay u soo dirtay Canab, furay, akhristay, aadna ugu farxay jawaabta dhiirigelinta leh ee ay u soo dirtay Canab. halkanna waxaan ka bilaabaynaa qaybtii 8aad ee sheekada la magac baxday jacaylkii Fuurida. Saadaq intii uu waday akhrinta waraaqda waxaa aad u garaacmayay wadnihiisa. wuxuu dareemayay farxad aanu qiyaasi karin. sadarba sadarka ka dambeeya waxaa sii siyaadayay farxaddiisa. markii uu dhammeeyey akhrinta waraaqda, haddana waa uu soo bilaabay. maba moodid inuu akhriyey ilaa 3 jeer ayuu soo bilaabaa oo uu dhammeeyaa. alla farxad badana kolka ruux aad jacayl u qaaday oo aad haddana u soo bandhigatay uu kaa aqbalo codsigaada. waa waqtiyada farakutiriska ah ee ruux kasta ee dunidan saarani uu dareemo farxadda ugu sarraysa nolosha. Saadaq iyo Canab waxaa u bilowday nolol farxad leh oo ku salaysan jacayl daacad ah oo ku lamaanan naxariis, kalgacal iyo mid walaaltinimo labadaba. ileen hore ayaa waxaa loo yidhi naf jacayl haleelay howl kama dhammaatee. Saadaq wuxuu go'aansaday inuu u qoro waraaq kale oo uga mahad celinayo sida ay u garab istaagtay, sida ay ugu muujisay damqashada jacaylka, sida ay uga farxisay. waxa uu diyaariyey waraaq aad u kooban oo uu ku soo koobay saamaynta ay ku yeelatay jawaabtii ay u soo qortay. subax xigay markii uu iskuulka yimid oo ay is arkeen, ayagoo aad moodo in mid weliba uusan indhaha u dhammaystiri karin kan kale jacayl dartii iyo cabsi iyo farxad isku ayaa iswaraysi dhanka caafimaadka kadib. Saadaq wuxuu si geesinimo leh u guddoonsiiyey waraaqdii uu u siday, iyadana si aan cabsi lahayn ayay kaga guddoontay, waana ay sii kala dhaqaajiyeen. ardayda qaar oo ay ka mid tahay Ladan ayaa darbadiiba dareentay in Saadaq iyo Canab uu ka dhexeeyo xiriir jacayl ah, maxaa yeelay mar weliba waa ay wada taagan yihiin, amaba waa ay wada socdaan, amaba waa ay wada sheekaysanayaan. Canab oo aad moodo in falaaraha jacaylka ay dirbaba saameyn ku yeesheen nolosheeda ayaa iyana shakhsi ahaanteeda dareemaysay farxadda jacaylka ugubka ah. Saadaq iyo Canab waxa ay labadooduba isku qaadeen jacayl fasalkooda oo dhan laga wada ogaaday, oo xitaa macallimiintii qaar ay dareemeen ama ogaadeen. qaar ardayda ka mid ah oo ay Ladan ka mid tahay ayaa kula kaftami jirtay Qays iyo Layla haya iska warrama markii ay salaamayso. iyagana dhib uma aysan arki jirin kaftanada Ladan, maadaama ay si dhab ah isu jeclaayeen labadooda oo aysan kala jeclayn in la ogaado iyo in kale. Canab ayaa kala furatay waraaqdii uu u soo qoray saaxiibkeed ay dunida ugu jeclayd kadib markii ay guriga timid. warqaddana waxay u qorneed sida tan: ka Saadaq ku socota Canab. abaaye macaan, markii aan aqriyay fariintaadii waxaan dareemay farxad aan cid bini aadan ahi aysan qiyaasi karin. waxaa noloshayda ka saartay walwalkii iyo walaacii maalmihii uu jacaylka aniga uun igu koobnaa. wallaahi waxaan kugu abaalgudo ma aqaan. waxaan kuu haystaa inaad tahay gabar walaashay oo kale ah oo igu badbaadisay xubin jirkeeda ka mid ah sida kilida oo kale xilli aan u dhiman rabay xaalad caafimaad halis ah. sidaas oo kale ayay iiga dhignayd fariinta aad ii soo dirtay. waxaan kuu ahaanayaa mar weliba daacad ku daryeela. waxaan kaa ilaalin doonaa murugada iyo fikirka. waxaan noqon doonaa qof kaaga abaalguda farxadda aad ii horseeday, maxaa yeelay qofka jacayl kaa caawiyey noloshaada ayuu badbaadiyey. qofka kugu eegtana noloshaadii ayuu mugdi u horseeday. abaaye macaan, xilli weliba waan kaaga mahad celin doonaa abaalka aad ii gashay, mana ilaawi doono inta aan neefsanayo. waa aad baan kuu jecelahay.
waa saadiq oo ku rajaynaya nolol farxad leh adduunka aakiradana jannatul-firdawsa. Canab markii ay akhristay fariintan waxaa ku sii siyaaday jacaylkii bilowga ahaa ee ku bilowday jawi aad u qurux badan una farxad badan. saadiq iyo canab labadooduba midba midka kale waxa ay uu u muujin jiray xushmad, naxariis, walaaltinimo, mid jacayl, mid ardaynimo iyo mid isqadirin iyo ismaqal ku salaysan. maadaama aysan xilligaa jirin qaab xiriir telefoonka gacanta oo ay ka wada xiriiri karaan, ayaa canab waxaanato inay soo barto gurigooda si xilliyada qaar uu u soo booqdo si ay u wada sheekaystaan, weliba xilliga uu iskuulka fasax yahay oo muddo 3 bilood aan indho laysa saaraynin. dhanka kale canab waxa ay aad uga baqaysay waalidkeed oo toos uma geyn karto saadiq guriga, maxaa yeelay waalidkeed wuxuu ku rajo weynaa inay wax barato oo ay waxbarashada heer sare ka gaarto. waxa ay ku ballameen in kulanadooda ay qarsoodi ahaadaan oo ay is arkaan oo keliya waqti aad u kooban. canab ayaa waqti iskuulka laga soo daayay waxa ay si wada jir ah isugu soo raaceen guriga. canab toos uma geyn karto guriga oo waa caqabad, oo waxay rabtaa oo keliya inay kor ka soo tusto. waxay si wada jir ah u soo istaageen meel laga arki karo guriga oo xitaa ma aysan u soo dhowaanin tilmaam fiican ayayse ka siisay. guriga labaad ee ganjeelka buluugga ah weeye. waxa aan filayaa inaadan ka dhumi doonin ama aadan ku qaldi doonin guryaha kale. saadiq abbaayo waan keeni karaa, waana ku faraxsanahay inaad isoo barto gurigiinna. haddana maadaama aysan jirin qaab ay ku wada xiriiri karaan marka u yimaado xaafadda ay ku ogaan karto, ayaa waxa ay ku wada ballameen inuu qaado foori baaq ah oo ay isku fahmi karaan labadooda, waana ay isla meel dhigeen. foorida ay ku wada ballameen ayaa ahayd hees jacayl ah oo aad u qiimo badan. heesta ayaa waxay ahayd: haddii uu jacayl jirin jaar lama ahaadeen, haddii uu jacayl jirin jagiil lama cayaareen, haddii uu jacayl jirin adduunyadu ma joogteen. jaalaley. soco qaybta 9aad ee qisada la magac baxday sheekada jacaylkii foorida. fadlan ha ka iloowin subscribe-ta si aad u rukumato qisooyin, mawduucyo xiise leh iyo barnaamijyo kale oo ku xiise gelinaya.